oo ugu warbixiyay wixii dhacay maantay waxaan raacinaa weerarkii dhacay 17 December-na waa joogay kanna waa joogay hadee waxay ku kala duwanaayeen kaasna wuxuu ahay habeen kanna wuxuu ahay maalin laakiin asgartuna asgartii ahaayeen taliyaashuna taliyaashay ahaayeen ragga amarka soo baxshan raggii ahaayeen isla raggii dacweysnaay oo arintii hore ku dacweysnaay oo loo heestay dembigii hore in isla ayagii ay wili magaalada howlgal ka sameynayaan oo dadka weerarayaan oo ciidamo ay wataan oo go'aamadii rabaan ay gaarayaan waa wax aad looga naxo aad aan uga xunnahay waxaana aaminsanahay waxyaabaha socdo inay yihiin wax siyaasadaysan wax madaxda sare ay soo amreen wax lagu talagalay inay yihiin waana wax socdo muddooyinkan oo laga bilaabo December ilaa hadda isbedel arko weynaa wadanka oo la rabo wadanka in la geliyo colaad iyo amni xumo iyo khalkhal siyaasadeed saas darteed anagu waxaan marka la ku celihaynaa dadkii dacweysnaayna in maxkamadda la keeno kuwa siyaasiyiinta oo madaxda oo aaminsan in awoodda maanta ay haystaan inay ku tagrifaan rabaane in xasaanada laga qaado ayagana si loo dacweeyo sababtu waxaan aaminsanahay ayagu waxay nala rabaan in fawda dhacdo wadanka waxay nala rabaan in argoosi dhaco waxay rabaan wadanku inuu meel khaldan aado laakiin anaga waxaan leenahay wadanka lagu soo celisho dariiqii saxda xooga loo adeegsanayo siyaasiyiinta iyo shacabka iyo magaaladana waa in laga waantooba dadkuna waa arkaan sida wax u socdaan oo khaldan waxaana rajeeynaa baarlamaanka iyo xisbiyada iyo civil society-ga iyo odayaasha dhaqanka inay waxyaabaha socdo wax ka qabtaan waxna ka yiraahdaan si wadanku uusan ugu dhicinin gacan khaldan uusan ugu dhicinin meel khaldan waa maasantiin